qodobka koobaad faqradiisa labaad oo u dhigan xeerarka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waxaasoo dhan waa iska saxid luqadeed ayaa xildhibaano badan soo dhaweeyeen in erey bixin xeer loo adeegsado dhammaan qaybaha dastuurka ee dib u eegista ku socota meeshana laga saaro sharci maadaama ay connotation diimeed ay leedahay isla faqrada saddexaad qodobkaas koobaad oo u dhigan awoodaha gobonimada dalka waxaa iska leh shacbiga Soomaaliyeed iyagoo awooddaas u isticmaalaya si toos ah iyo si dadban una adeegsanaya hay'adihiisa uu xil saartay mudanayaasha arrinkaas waxay soo jeediyeen in qodobkan la muujiyo cidda shacabka Soomaaliyeed ku matasha danahooda inay yihiin golayaasha shacabka doorteen ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. qodobka labaad oo ku saabsan diinta dalka oo asalka u dhignaa islaamku waa diinta dowladda laakiin soo jeedinta cusub ee hadda idin hortaala laga dhigay islaamku waa diinta dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. xildhibaanaha soo jeediyay in sidii hore lagu laabto halka xildhibaano kale ay keeneen qaab lagu caamimayo diinta guud ahaan dalka iyo dowladda taasoo ah islaamku waa diinta dadka dalka iyo dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. xildhibaanada guud ahaan u maleynayo inuu soo jeedintaas hoosta ka xariiqo qodobka labaad faqradiisa saddexaad oo iyaduna u dhigan waxaa reeban cayda diinta islaamka iyo karaahiyadeeda. faqradaas cusub aad ayaa loo soo dhaweeyey halka xildhibaanada qaarkood ay soo jeediyeen in lagu daro reebista caayidda diimaha oo idin ereyga karaahiyadeeda waxaa la soo jeediyey in loo helo erey bixin ka fudud kana habboon. qodobka saddexaad ee la xiriira mabaadi'da asaasiga ah dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu u dhigan yahay faqrada koobaad waxay u dhigan tahay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa saldhig u ah quraanka kariimka sunnada nabi Muxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaato wuxuuna ilaalinayaa shareecada islaamka iyo maqaasideeda. luqad ahaan waxaa la soo jeediyey nebi qoran marka nabi ayaa in laga dhigo ayaa dadka qaarkood sheegeen laakiin qaamuuska markii aan eegnay waxaa toosnaatay in laga dhigo oo laga dhiga nebi. ereyga cadaalad bulshadeed oo ku jirtay faqradda asalkeediina waxaa la soo jeediyey inaan meesha laga saarin. isla faqraddaas koobaad ee qodobka saddexaad oo u dhignayd masaadirta islaamka kitaabka qur-aanka sunnada in lagu daro ijmaac oo taasna la raaciyo. su-aalo ayaa laga keenay fasiraadda maqaasidda iyadana waa la dul istaagay. qodobka saddexaad faqradiisa labaad oo u dhigan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa dal muslim ah oo ka mid ah ummadaha carabta iyo afrikaanta. waxaa la soo jeediyey in marka koobaad intaan afrikaanta iyo carabta la xusin lagu daro siiqo luqadeed oo dhehaysa oo ka mid ah ummadaha adduunka kadibna carabta iyo afrikaanka la sheego. diinta markii laga hadlayay qodobkaas faqradiisa koobaad waxaa ku jirtay dal muslim ah iyadana dooda waxaa ku jirtay in laga dhigo dal islaam ah. isla faqradda saddexaad qodobka saddexaad faqradiisa saddexaad oo u dhigan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay ku dhisan tahay mabaadi'da asaasiga ah ee nidaamka awood qaybsiga federaaliga ah. marka ereyga awood qaybsiga aad ayaa looga hadlay waxaa loola jeedo iyadoo dadka qaarkood ay fasiraaddaas u qaabteen awood qaybsiga beelaha oo dalkeenu isticmaali jiray laakiin waxaan rabaa inaan fasiraad yar taas xasuusiyo. cutubka shanaada wuxuu ku saabsan yahay wuxuu nidaaminayaa bahsanaanta awoodaha dowladda qaab dhismeedka dowladda iyo saddexda heer iyo qaabka ay u dhisan tihiin dowlad goboleedyada. marka awood qaybsigu waa midka dowladaha ka dhexeeya ma ahan midkii reeraha. qodobka saddexaad faqradiisa afaraad oo u dhigan dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ilaalinayaa xuquuqda aadanaha talinta sharciga iyo xurmeynta xeerarka caalamiga ah oo aan ka hor imaaneyn shareecada islaamka iyo dastuurka.
talinta sharciga waxaa la soo jeediyey in lagu bedelo sarreynta sharciga. qodobka saddexaad fakhradiisa shanaad oo u dhigan haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddexda laamood ee hay-adaha dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan. xildhibaano ayaa aada u xusay qodobkaas oo hogaaminayaan kokaska iyo madaxda kale ee haweenka in lagu daro fakhradaas 30% inay haweenku helaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo. waxaan filayaa in guddoonka ay la taalo soo jeedin arrinkaas la xiriira. qodobka saddexaad fakhradiisa toddobaad oo u dhigan dhulka, badda, hawada iyo khayraadka dabiiciga ah waa hanti qaran oo shacbiga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wada leeyihiin, waxaana mas-uul ka ah dowladda federaalka soomaaliya. waxaa la soo jeediyey in lagu daro webiyada oo aan ku xusnayn xusidda koowaad ee khayraadka marka laga hadlayo. waxaa sidoo kale la soo jeediyey in fakhrad cusub lagu soo daro taasoo u dhigan hantida dowladdu leedahay ee geyiga soomaaliyeed lama wareejin karo, lama iibin karo, cid aan soomaali ahaynna ma intifaacsan karto, waxaana mas-uul ka ah oo ansixinaya golayaasha shacbigu u doorteen. waxaa xusid mudan in arrintaani lagu nidaamiyey cutubka saddexaad ee aanu tegi doono oo ku saabsan dhulka, deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah. bal halkan waxay ugu jirtaa mabaadi guud ahaan ayay ugu jirtaa. qodobkan saddexaad guud ahaan waxaa su-aal laga keenay oo lala akhriyey qodobka 132 fakhradiisa labaad oo tilmaamaysa wax ka beddelka mabaadi'da guud ee asaasiga ah. su-aalahana la ka weydiiyey waxaan u rifargarayn doonaa oo iiga xog ogaalsan abukaata burhaan aadan cumar. su-aasha la xiriirta mabaadi'da guud dib u eegisteeda in qodobka saddexaadna wuxuu ku saabsan yahay mabaadi'da guud. 132 fakhradiisa koowaad iyo labaadna waxay ka hadlayaan mabaadi'da guud wax ka beddelkeeda. marka abukaata burhaanan ayaa arrinkaas taaban doona. qodobka afaraad oo sarreynta dastuurka la xiriira wuxuu u dhigan yahay fakhradiisa labaad cid kasta dhammaan hay-adaha dowladda, ururada siyaasadeed iyo kuwa bulsheedba waxaa waajib ku ah inay hoggaansamaan dhaqanka iyo ilaalinta dastuurka. waxaa la soo jeediyey in lagu daro ururada meesha looga daray in xisbiyada siyaasadeed laftoodana lagu daro. qodobka afaraad fakhradiisa saddexaad oo isaguna u dhigan xeer kasta, go-aan kasta ama tallaabo kastoo maamuleed oo ka soo baxa heer kasta ee hay-adaha dowladda kana soo horjeeda dastuurka wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan, waxaana burintooda awood u leh maxkamadda dastuuriga. arrinkaas maxkamadda dastuuriga oo aan hadda dhisnayn aragtiyo kala duwan ayaa laga soo jeediyey, taasoo ay ugu horeyso in gebi ahaanba meesha laga saaro, in shaqadeeda maxkamadda sare lagu dhafo oo aan si gaar ah loo dhisin. waxaa sidoo kale la soo jeediyey in inta laga dhisayo awooddeeda loo igmado baarlamaanka. ereyga maxkamadda dastuurigana waxaa dadka qaarkood soo jeediyeen in laga dhigo maxkamadda awoodda u leh. qodobka shanaad oo afka rasmiga ah ku saabsan waxaa si guud looga hadlay in qodobka magaciisa sidiisa hore lagu celiyo oo laga dhigo afafka rasmiga ah, maadaama af ka badan uu rasmi noqonayo, carabiga uu afka labaad yahay oo isna rasmi ah. isticmaalka luqad ama af iyada laftirkooda midda ku habboonna waa laga hadlay. isla fakhradaas koowaad qodobkani wuxuu ku saabsan yahay afka rasmiga ah. ummaduhuna iyagoo afaf badan leh ayay mid ka mid ah rasmi u aqoonsan karaan. afafka rasmiga ah waxaa la soo jeediyey in afka ingiriisiga lagu soo daro maadaama aan looga maarmayn daraasaadka cilmi baarista tiknolojiyadda, xiriirada iyo heshiisyada caalamiga ah. waxaa xusid mudan in qodobka 29aad oo cutubka labaad oo aan ugu tegi doono maalmahana soo haya arrimaha la xiriira horumarinta afka iyo dhaqanka oo halkan wuxuu ugu jiraa mabaadi guud ahaane inuu halkaas ku qoran yahay.
waxaa jira deegaano badan oo looga hadlo afaf kala duwan oo ugu horeeyo Jimbalazi oo looga hadlo Baraawe, Baajuuni oo looga hadlo Kismaayo, Zigwa oo looga hadlo Jubbada Hoose, iyo marka afafkaas oo dhanna rasmi ma ahan, laakiin afafka waddankeenu leeyahay ay ka mid yihiin. qodobka shanaad faqradiisa labaad waxay u dhigan tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxay daryeeshaa, ilaalisaa, isla markaana hormarisaa afka Soomaaliga iyo suugaantiisa. waxaa la soo jeediyey in laga dhigo dowladda federaalka Soomaaliya waa inay daryeeshaa oo waajib laga dhigo oo saas loo dhigo. qodobka lixaad oo la xiriira calanka iyo astaanta qaranka oo ka hadlaya calanka iyo astaanta, waxaa la soo jeediyey in faqradda saddexaad ee heesta calanka si dhammaystiran loogu qoro dastuurka si aysan u dhicin in wax kale gadaal looga daro. waxaa kaloo la soo jeediyey bisha oo ah calaamad islaamku leeyahayna in calamka meel looga muujiyo. midabka calanka Soomaaliya si cad loogu xuso qodobka lixaad maadaama midabo kala duwan loo isticmaalo maalmahan dambe. waxaa kaloo la soo jeediyey in heesta calanka iyo astaanta qarankaba dib u eegis lagu sameeyo. talooyinka qaar ayaa waxaa ka mid ahaa in duco lagu daro qaybaheeda dambe haddii afyahanada iyo suugaanyahanadu ay ku guuleystaan arrinkaas. dhanka astaanta isla faqrada qodobkaas lixaad faqradiisa labaad ee sifaynaya muuqaalka astaanta, muuqaalka rasmiga ahna waxaad ka dheehan kartaan jadwalka pageka 105 oo ka mid ah kuwa ugu dambeeya nuqulka dastuurka. wuxuu leeyahay gaashaanta dushiisa waxaa ku yaala rukumo carbeed oo xardhan lehna 5 madax oo dahabi ah. marka muuqaalka marka aad eegto waxaad arkaysaa calaamado dheeri ka ah oo sifada ku qeexan qodobka lixaad faqradiisa labaad dheeri ka ah. sidaas darteed waxaa la soo jeediyey in dib u eegis lagu sameeyo jadwalka laftirkiisa muuqaalka ku xusan. qodobka 7 oo la xiriira geyiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobka 7 faqrada 3 oo ku saabsanaa xalinta khilaafka sohdimaha oo gabi ahaanba la tiray, waxaa la soo jeediyey in la soo celiyo, halka mudanayaal kalena ay soo jeediyeen inay sax tahay in meesha laga saaro. faqradda 4 ee isla qodobkan ee tilmaamaysa jahooyinka waxaa la soo jeediyey in lagu daro faqrad cusub oo u dhigan in koonfur bari ay naga xigto badweynta Hindiya. qodobka 8 oo la xiriira jinsiyadda faqradiisa 1 oo u dhigan shacbiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa mid lama kala qaybin karo, wuxuu ka kooban yahay dhammaan muwaadiniinta. xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyeen in ereyga Soomaaliyeed oo meesha laga saaray meesha lagu soo celiyo, halka xildhibaano kalena ay sax u arkayeen in sixidda luqadeed meesha laga soo jeediyey ay habboon tahay. waxaa la soo jeediyey in sida asalka ahayd loo celiyo oo ahayd jinsiyadda Soomaaliyeed. qodobka 8 faqradda 3 oo u dhigan jinsiyad dal kale in laga dhigo dalal kale si qofka muwaadinka uu xaq ugu yeesho inuu dalal badan uu muwaadinka noqdo oo aan dalka Soomaaliya ka ahayn oo muwaadinka koobaad ka yahay. qodobka 8 faqradiisa 4 oo lagu daray faqradda 2 in meesheedii lagu soo celiyo ayaa la soo jeediyey. xildhibaanada qaarkood waxay sheegeen in la tiray, laakiin marka hore mid kale lagu milay, laakiin waxaa la soo jeediyey in meeshiisa lagu soo celiyo oo dastuurka lagu xeeriyo halka xeer lagu soo saari lahaa laalista iyo ka qaadista jinsiyadda. si mug weyn ayaa looga hadlay arrinkaas. waxaa sidoo kale si mug weyn looga hadlay in qodobka 8 lagu daro faqrad cusub oo dhigaysa in caruurta ay dhalaan aabe ama hooyo Soomaaliyeed ay qaadan karaan jinsiyadda si isku mid ah oo gabdhaha Soomaaliyeed caruurta ay dhalaan aan la takoorin. waxaan filayaa arrinkaas isagana mooshinka ay haweenka caucus soo gudbiyeen oo guddoonka la yaala inuu xiriir la leeyahay. mudan guddoomiye qodobka ugu dambeeya qodobka 9 oo la xiriira maqaamka caasimadda 2 su'aal ayaa laga keenay. midda koowaad waxay la xiriirtay maxaa cutubka 5 loo geeyey
iyo maxaa dib loogu dhigay labaduba hal su-aal isku noqonaya. waxaan rabaa inaan xildhibaanada u sheego maqaamka caasimadda xulashooyinka laga sameeyey waxaad ka dheehan kartaan bogga 119aad ee warbixinta la socota soo jeedimaha wax ka beddelka dastuurka. xildhibaan Ilyas aan u malaynayaa inuu maalinta halkan doodiis inay ka mid ahayd. maqaamka caasimadda arrimaha la go'aaminayo waa arrimo iskugu jira maamul iyo matalaad, labaduba waxay ka dhalan karaan hadba xulashada la qaato marka xulashooyinkaas laga doodo. xulashooyinka saddexda kuma koobnaan karaan, waa ka badan karaan haddii loo baahdo. xanaanka maamul ee la qaato ee xulashada la qaato waxay geli doontaa cutubka 5aad. meesha cutubka 5aad uu ka yimid waa meeshaas. cutubka 5aad ee dastuurka wuxuu nidaamiyaa bahsanaanta awoodaha dowladda, qaab dhismeedka dowladda ee 3 heer iyo qaab dhismeedka dowlad goboleedyada. marka xulashada la qaato wixii maamul ku saabsan meeshaasay geli doonaan. wixii matalaadda caasimadda la qaatana waxay geli doonaan cutubka 4aad oo doorashada la xiriira iyo cutubka 6aad. mudan gudoomiye haddaad iga ogolaato waxaan rabaa inaan kugu wargeliyo in warbixinta laga qabtay cutubka 1aad 9kiisa waxaan rabaa xildhibaanada haddii ay warbixinta kooban ee halkan ka jeediyey ay ka dhex arki waayaan doodda halkan ka dhacday. doodda halkan ka dhacda waa ka ballaarneed intaas, laakiin warbixinta weyn oo guddiga ay hayaan secretariatkiisa ayay ku jirtaa. guddiguna markii uu diyaarinayo marxaladda 3aad nuqulka kama dambaysta ah waxay ku khasban yihiin inay soo jeedin walba xildhibaanka halkan ka sheegay inay dul istaagaan.